degmadan Gurceel waa degmadii ugu horeysay ee ku dhiirata in ururka al-shabaab argagixisada Soomaaliya inta qori la qaato in lala diriri karo bulshadii tustay Soomaaliya iyo caalamka oo dhan waa bulshada indhaha hortaada ka muuqatay mudane madaxweyne ku xigeen bulshada noocaasi ah ee aad arkaysaan inay dawladnimada diyaar u tahay inay rabaan inay ka shaqeeyaan midnimada galmudug inay ku garab siiyaan hawsha adag ee ku jirtaan waxay qabaan baahiyaad u tiro badan waxay u qabaan dawladnimada waxay rabaan baahiyooda in la daboolo waxay rabaan in la garab siiyo Gurceel waa magaaladii xorriyadda oo lagu hor istaagay duulaankii argagixisada ayagoo qabsan lahaa dad deegaano kale oo xitaa aan galmudug ahayn sidaa darteed magaaladan waxaa la dhihi karaa waxaa laga xoreeyey Soomaaliya oo dhan inay geesiyaal yihiin cadowga argagixisada u bareereen kaliya maahan waa magaalo ganacsi oo ku fiican horumarka waa magaaladii ganacsiga galmudug halbowlaha bulshada reer galmudug waa Gurceel dhinac walba la eego dadka halkaas u soo baxay ee maanta na soo dhaweeyay haddii si kale loo dhigo lama dhihi karo magaalo ay ku nool yihiin ayaa la heli karaa